الرحيم maanta waxaanu bilaabaynaa maadada structural engineering 1ka ardayda structural engineering ka waxa kala saaran laba qayb structural engineering 2 iyo structural engineering 1 maanta waxaanu ka hadlaynaa structural engineering 1 ardayda structural engineering 2 doonayso insha Allah cashirkooda waxaan soo geli doonaa maalinta bari ah insha Allah xoogaa waxa socoto ardayda dib habeen groupi iyo waxa ayaa loo sameeyaa soo marka ardayda structural engineering 1 ka doonayso maanta chapter ka aanu ka hadlaynaa waxa shear force diagram and bending moment diagram SFD and BMD waxaan soo qaadanay example yar oo aad iyo aad u fudud si hadhow aad tartiib ula qabsataan example adag maanan ka bilaabin so example-ada kale ee ka dambeeya xoogaa way ka arkaa doonaan casharada insha Allah anigana marka casharkan dhameey ka bacdi assignment ayaan niga doonayaa waan soo sawiri doonaa groupkan soo dhigi doonaa idinka ka soo shaqeey doona marka fahantaan soo marka maanta waxaan ka bilaabaynaa SFD and BMD insha Allah structural engineering waxaan isku dayaynaa inaan 5 chapter aan ka gaarsiino oo kamid yahay SFD gan oo kamid yahay stress and strain diagram oo stresska oo strain-ka aad u fara badan stresska oo time fara badan kale fracture stress oo kale sidoo kale insha Allah adiga intii aan ka gaari doono insha Allah soo marka maanta waxaan ka hadlaynaa SFD and BMD example kan waxaan haysanaa laba support oo hinge support iyo roller support hinge support sida aan wada garanayno wuxuu leeyahay laba unknown reaction intiba laba hinge support wuxuu leeyahay laba ama inuu noqdo mid vertical ama inuu noqdo horizontal fixed support kana sidoo kale hal mar intaan ku sameeynaa fixed support waa kana calaamadiisa wuxuu leeyahay saddex moment iyo inuu vertical force noqdo inuu horizontal force noqdo saddexaas ayaa la helaa hinge support in sidoo kale waxaa la helayaa asina laba resistance oo ah inuu waxaan vertical noqdo horizontal force ama inuu noqdo vertical force inuu noqdo ama horizontal force inuu noqdo sidoo kale waxaa jiro roller jiro oo asigana la helaya just hal resistance oo ah vertical force so vertical force kan wuxuu noqon karaa downward oo noqon karaa hadii downward oo iska caabin oo sameey karaa upward marka resistance waxa weeyaan iska caabin so vertical fixed support kan fixed ayaa la yiraahdaa kan fixed support then kan waxa weey hinge support kan waxa weey roller support saddexdooda saas ayaa loo kala qaadaa types of support types of support waxaan u qorayaa because ardayda qaar oo waxa jiro maadaama dhigto aanan English wax ku qaadanin soo marka fixed support hinge support iyo roller support sabradooda saddexdan ayay kaliin kolay ardayda magacyo qaar ay u garanayaan arday waxa jirta xitaa carabi wax ku qaato oo wadamo kale joogo oo aan Soomaaliya wadamadan joogin soo kan fixed support la yaqaan badana derbiga momentiga oo iska celinaya iska caabinaya ku sameeyna ama vertical force saddexdan ayaa la raadiyaa fixed support hinge support ama waxa noqon kara horizontal force ama vertical force kana wuxuu iska caabin karaa just vertical force soo marka anaga supports ka meeshan ku haysan waxa waaye mid hinge support vertical ka meeshan waxaan ku haysanaa laba support kan sidoo kale saana waa loo sameeyaa roller support waaye kan waxa weey hinge support wuxuu leeyahay laba unknown reaction hore ayaan u sheegay vertical iyo horizontal waa taas guduudka qalin guduudka kunji kan wuxuu leeyahay just waa roll vertical force soo marka just waxa u baahanahay stepka koowaad inaan sameeyno SFD BMD waa inaan soo helnaa unknown reactions waa kana first step calculate the unknown reactions waxaan soo helaynaa forces ka aan la aqoonin force ka la aqoon waa maxay waa kuwan guduudka ku soo garo kanu ko rollerka labo saddexdaas ayaa ka bacday sameyn doona SFD BMD soo marka inta imaaw moment supportiga waxa haysanaa laba supportigan wuxuu leeyahay laba unknown reaction kana wuxuu leeyahay hal unknown reaction ina supportigan qaadan oo D aan qaadan ina B qaadan waxa inoo fudud inaan qaadano B insha Allah ardaydan D inay qaataan ayaan isku dayaa si u soo helaan soo ardayda waad ka shaqeyn doontaan insha Allah D aa qaadanaysaan soo aniga B ayaan qaatay B hadii aan qaato labadan force lama xisaabinayo dhageysta si fiican dhageysta hadii aan moment of B aan qaato force-gan iyo force-gan waan ku fadhiistay lama xisaabinayo macnaha xisaab ma laha ma fahanteen soo marka waxa la xisaabinayaa forces-ka kale forces-ka labadan hadda iska skip gareey point-gan aan qaatay point-gan hadda qaatay kana iska skip gareey hadda point C qaato 50-gan waa skip gareena ma xisaabsanayo ما فهمت هذا دي خاطر RD سكيب قرينا انت كلا واحد حسابسن سو هذا بي ايام قاتل ما فهمت وركي هذا اي قاتل سيده كلا صدق كاسو سكيب قرينا لكن انا هذا الشخصيه دي ايام waxa u qaatay بي hadii aan qaato maxaa skip garay RB RX skip garay oo ah pointiga ay marayeen
supportska soo marka halkan imaw b haddii aan qaato sidoo kalena clockwise ayaa waxa u qaata qaabka saacadda u shaqeyso waa taqaana qaab clockwise qaabka ay saacaddu u shaqeyso kan kalena anti clockwise waa ma fahanteen qaabka ay saacaddu u shaqeyso clockwise ayaa la yiraahdaa qaabkaas ayaan waxa u qaata positive waa kana kan ayaa aniga qaabka saacaddu u qaata clockwise ayaa positive ah inta markii aan joogo oo point b aan qaatay oo momentigii aan b aan qaatay force kasta oo aan ku jirin kuwa aan skip gareeyay inta kale waa inay imaadaan halkaas point b waa inay imaadaan so point b ayaan qaatay minus 30 oo lagu dhuftay horta moment waa maxay moment waxa waaye force oo lagu dhuftay distance force wuxuu noqon karaa horizontal force oo noqon karaa oo san ah ama wuxuu noqon karaa vertical force doo noqdo distance lagu dhufanayo waa horizontal distance macna cagsigeed for example kan waa vertical force waa distance lagu dhufanayo waa horizontal distance ma fahanteen force cagsiga distance kuwa haddii force-giisaan ii noqdo saan u jeedo oo horizontal force cagsiga aan ku dhufanayo distance-giisana waa vertical distance so marka aniga hadda waxaan haystaa ay ku xiran tahay hadda waxaan haystaa vertical force ay haystaa waxaan haystaa distance oo horizontal distance so force oo lagu dhuftay distance-ga inta meeqa u jirta point b iyo halkaas meeqa u jirta kusoo dhaweeb point b dan iyo halkaas meeqa isku jiraan waxay isku jiraan 1 meter ay isku jiraan 1 meter so marka force oo lagu dhuftay distance-ga meeqa waa 1 meter way faantay soma soddon oo lagu dhuftay 1 meter oo ka calaamadee qaadanay plus ay qaadanay minus ay qaadanay waxa ii sheegayo waxa aan qaatay clockwise ayaa qaatay kan saan ay u soo soconaa so marka maxaa waay saan u socdo anti clockwise waa so marka kan waxa waa anti clockwise so marka kan waxa waa minus 30 oo lagu dhuftay distance-ga oo hal so minus ay qaadatay oo clockwise ima marka force kale halkan marka inta ima force kale oo external force haysto waa 50 ga waxa la rabaa inuu inta imaado marka distance oo jirana waa 3 meter so 50 lagu dhuftay 3 meter qaabka uu soo soconaa ma jeeda saas ayuu soo soconaa halkaas ayuu imaanaa ma fahanteen so ilaa halkaas oo kiima so marka waxa waa sida saacadda ay u wareeganaysaa ma jeedin sida saacadda saas ay u wareeganaysaa way fahanteen waa clockwise so marka that means waxay noqonaysaa plus ay noqonaysaa ma fahanteen plus oo lagu dhuftay 50 into 3 so waa soo calaamadahan ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee dadka qaldaay calaamadda waxay ku xiran tahay momentiga meesha ka qaadato iyo force-ga ku dhufanayso meesha ku jiro force-gan haddii inta igu jiro force-gan oo inta imaanayo oo b qaadanayo waxay noqonaa minus ma fahanteen marka hadda 50 oo lagu dhuftay 3 waaye okay kan soo u socdaa saan ay u socdaa ma jeedin inta imaana inta ku soo baxay halkaas oo imaana soo marka soo u socdaa saacad cagsigeedu u socdaa la faham si saacad u shaqeynaysa sideeda kale u shaqeynaa soo marka waxa waaye anti clockwise that means waxa waaye minus rd oo lagu dhuftay distance-ga ah hayso 3 plus 2 oo 5 ah 3 plus 2 oo 5 ah soo marka waxa waaye distance-ga haysana 5 is equal to 0 da waa حالا ميكانيكس كشرحين أردد إني دقيستانا وهم فيليا أو ده ميكانيكس كاي كوا هم يوتيوب كاي كلا صنعان so هو equilibrium condition إني لشرح مباني وتقنين سكن يركايا already كجرتين so مركب ما يسمح حكسوه إلى RD كونتن أو لقطة تصدح بقولي كونتن واي كونتن أو لقطة تصدح بقولي كونتن ما ينستعد ده كجرت وبقول لواتن شن ده وقيسة ولا واتني أفر هيلوين علامة ده وح فورس أو وضعته أي أهان علامة سينيسا لواتن 24 كيلو نيوتن so أنا كيلو نيوتن أيام مقابل so summation of y قالوا summation of y أيام سهل summation of y محاول vertical forces y isu wadarta isu geynta awoodeed ee verticalka ah ma fahanteen forceska taagan waa so meeqa force taagan haysta 30 kilo newton iyo 50 kilo newton haysta iyo sidoo kale waxa soo helay rd oo kor u socota iyadana labadan hoos ay u socdaan rd na kor ay u socotaa so marka waxa leeyahay sidoo kale waxa haysta rb aqoonin qiimaheeda laakiin hadda soo helay rb waa kana rb oo qiimaha aan soo helay plus aan leeyahay sababtan plus u lahaa maxaa kor ay u socotaa plus rb oo iyadana kor kale u socoto minus sababtan u leeyahay 30 waxa waa downward waayo 50 gana iyadana downward waayo minus 50 is equal to 0 simple so marka rb qiimaheeda 24 ugu bedel waa kana 24 minus 30 minus 50 so rb is equal to 56 kilonewton 56 kilonewton waan sheegnay kaliya hadda wali ma aanan SFD BMD sawirin waxaan soo helnay reactionska ayaan soo helnay kor u qaad xoog
reactionska ayaan soo helay sorry reactionska ayaan soo helay so marka meeshaan si fiican u faham meeshaan waa meesha aan u baahanahay oo casharkaan usoo sameeyey ee ardayda badanaa igu dhahaan maanan fahmin waxaa jira sharcigaas ayaan doonayaa inaan halkan hal mar idinku meeshan gareeyo sorry waxaa haystaa beam for example beamkan tusaale waa beamkan inta waxaa iska dhahdaa hinge support kasi intana calaamadan b iska leh inta L1 iyo L2 iska leh so marka beamkan SFD BMD-giisa markaan rabo inaan sawiro inta waxaan soo helay for example 1 ayaa soo helay intana waxaan soo helay 2 ayaan soo helay iska leh waa macnaha R1-teeda R1 iyo R2-deeda so marka R1 kor u soo baxay SFD markaan sawirayo halkan haddii uu yahay structure-kayga haddii uu labada load ee u dhexeeyo R1-tan iyo B-dan haddaysan wax looda u dhexeyn waxaan sameynaa R1 kor ayay u socotaa ama kor ayay u soconaa waxaan sameynaa halkaas xariiqan dhag isi waa iloow so marka waxaan sameynaa loadka horizontal ayaan qaadana way fahamtay soma horizontal ayaan qaadana because kan wax looda uma dhexeeyo kan hoos u soo deg muhiimadeedu ma aha inaan SFD BMD sawiro inta markaa ma iyadana wax looda u maxay xaq waa so marka SFD BMD-ga muxuu noqonaa BMD-ga wuxuu noqonaa kan hadduu horizontal yahay kan wuxuu noqonaa incline way fahamtay kan incline waaye incline kan marna hadda kor u socdaa because kana wuxuu yahay positive kor u socdaa way fahmaysa incline kan kor ayuu socodsiin kan negative waaye oo hoos ayuu jira so that means incline kan sameeyna wuxuu soconaa hoos mid kale beam kale hal mar kale sorry beam kale oo UDL imaado okay UDL kan SFD BMD selection inta UDL haysta Soomaa ha hadeed incline ka inta ku sameeyneenay inta ku sameeyneenay incline kiisaas iska leeyahay mifan inka SFD-gaygu waa waxan SFD-gaygu wuxuu noqday incline ayuu noqday so BMD-gaygu muxuu noqonaa hadduu kan SFD-gaygu oo noqday incline BMD-gaygu wuxuu noqonaa curve simple marka haddii SFD-ga hal mar aan ku celino inta imaada haddii SFD-gaygu oo horizontal yahay BMD-gaygu waa incline haddii SFD-gaygu oo incline noqdo BMD-gaygu waa curve haddii uu curve SFD-gaygu noqdona BMD-gaygu wuxuu noqonaa second degree curve waa fudud waa just qoro waxaa ku sheegay wax kala sameyn ama sawir ahaan ayaan kuu soo diri doonaa xeerka geeskan ayaan soo dhigi doonaa iyadoo sawir ah haddii SFD uu yahay horizontal BMD waa incline haddii uu SFD yahay incline BMD waa curve haddii SFD curve yahayna BMD waa second degree curve so marka halkaan aan imaano meeshaan waxaa haystaa minus 30 degree oo ah downward intee u socotaa igu soo dhawey halmar intee u socotaa downward ayay u socotaa minus 30 degree oo downward u socoto soo kor minus 30 degree أنا maxaa sameynaa marka minus 30 degree hoos ayaa aadaa halkaas ayaa ah minus 30 degree soo marka maxaa u dhexeeya labada forcigan oo RB iyo 30 maxaa u dhexeeya wax uma dhexeeyaan oo load ah wax dhexeeshaha distance maahan ee waa load waa culays waa force wax force uma dhexeeyo that means haddaysan waxba u dhexeyn waa soo jiida ilaa inta ka imaanayo halkaas ayaa imaanaa oo ah minus 30 gayga ii socdo marka halkaan imaado RB maxaa soo helay 56 oo ah positive se u socotaa upward ayay u socotaa ani intee jooga minus 30 ayaa haysta minus 30 plus 56 intii oh sorry inaad u jeedaan oo malayna minus 30 maho plus 56 haysta plus 26 way fahanteen maho that means markaan maadaama uu 56 yahay oo positive yahay oo RB-gan oo kor u socdo inuu kor u socdo ay positive kor ay aada 26 ay maanay labadan load waxba uma dhaxay so waa jiidaya oo ah waxa sameynaya horizontal line ayaan sameynaya ila loadka kale ee kontanka meeshiisa laga gaaro okay loadkii culeyskii kale oo forciga ayaa meeshan ayaan jooga kontanka ayaa jooga marka kontankan inta u socdaa fiiri kontankan waa downward waa fiiri kontankan waa downward waa maadaama uu downward yahay imaaw ani maxaa haystaa 26 master downward maxaa minus minus 50 maxaa ilaa minus 24 waa kana saas ayaan usoo soconaya ilaa hoos aan ka imaado minus 24 so minus 24 marka helo
RD deedii oo aan soo helay 24 iyo 24 tan maxaa u dhaxeeyo labadan structure-ka wax culays ma u dhaxeeyo wax force kale ma u dhaxeeyo may maadaama force kale u dhaxeenin waa jiidaya iyadan ilaa aan halkaas ka tagay soo marka halkaas tago geeskaas waxa la rabaa inay ay tagto 24 ani maxaa soo helay 24 oo plus aan soo helay haddana maxaa haystaa 24 oo minus aan haystaa soo labadooda kala jar waxay imaanayaan 0 kor u soo qaaday soo haddii SFD-gayga oo ujeedin inuu 0 noqday maadaama oo SFD-gaaga uu 0 noqday example-kayga waa saxan yahay calculation-kaygii hore waa saxan yahay ma fahanteen SFD-gayga 0 hadduu noqdo calculation-kaygii hore waa saxan yahay haddii taan wax yar ka tegay xoogaa hal mar calculator-ka in sidoo kale lagu ogaado oo saxan yahay equation-kaaga waxaa lagu ogaadaa anaga external force meeqa haysanaa markii laga tago supportiskan iyo waxan kor meeqa ka imaanaa 30 plus 50 soo maaha 30 plus 50 so 80 maaha qiimaha labada aan soo helo oo kor u socota iyadana oo ah 24 oo lagu daro konton iyo waxaa la rabaa inay 80 noqoto 24 plus konton iyo you see 80 so waa saxana way balance garaysantahay so marka iyadan waxa lagu ogaadaa inay kow oo calculation-kaada uu saxan yahay so markaad waxa soo helay SFD-geena 0 ayuu soo noqday 0 ayuu noqday hadduu SFD-gaaga uu 0 noqon waayo waxaa lagu jiraa calculation-kaada waa ku laabanaysaa so waxaad garata ma waa ku laabanaysaa so SFD-ga hadduu 0 noqdona waad saxan tahay BMD-ga mararka qaar ma keenaayo wax oo 0 mararka qaar waa nothing like mar walba ma mararka qaar hadduu uu keeni waayana waa arkaynaa iyadan example aan BMD 0 keenaynin insha Allah soo marka halkan ii imaado halkan waxaan doonayaa inaan kala qaadno meeqa meeshan rectangle ayaa haysan SFD-ga kor soo qaad hal meeqa meeshan SFD-gan meeqa shape rectangle 1 2 3 saddexdoodana waa rectangle saddexdaana waa rectangle maadaama ay saddexdan yihiin rectangle area isticmaala waxaa base times height waa taqaana dugsi hoose lagu soo dhigaa lixaadkii toddobaadkii afraadkii lagu dhigaa so area 1 keed meeqa waa area 1 calculation ah waxaa ku sameynaa iyadoo graph noo sameynaa kan maxaa waa minus waaye maadaama hoos socdo minus iska leh xisaabta area meeqa waa 30 distance-gayga meeqa waa 1 so maxaa isoo baxaa minus 30 mi fahanteen ha area 2 deed meeqa waa area 2 waa tana 26 plus waa plus maadaama plus ta calaamadaas ka hormari 26 times 3 meeqa waa 26 times 3 26 oo lagu dhuftay 3 waxaa waa 78 plus 78 iska dheh area 3 meeqa waa area 3 waxaa waaye minus ka hormari waa 24 lagu dhuftay 2 meeqa waa iyadana 48 minus 48 haddaa intaan isku daro ee 0 ii keento example BMD-gayga wuu saxan yahay fiiriya waxaa kasoo bilaabda minus 30 plus 78 minus 48 oo jeedin so maxay ii keentay 0 so wuu saxan yahay wixii hadda tan analytical method aa lahaa ama calculation by calculation iyadoo graph oo lagu xalinayo maanta meeshan maxaa haysanaa horizontal line ayaa SFD-geena haysanaa BMD markaan sabirayna waxaa lahaa BMD is nothing but the area of SFD area SFD-ga ayaa muhiimad ah so marka area SFD meeqa haysanaa 30 oo ah negative maxaan sameynaynaa incline-ka aan sameynayna waa negative so downward waa macnaa incline-ka aan sameynayna downward minus 30 halkaas kasoo bilaabana halkaasaan geenayna ilaa 4 kale aan tagay so waxaan soo helnay minus 30 iska dheh okay way fahamtay soma okay kan maxaa waa positive incline muxuu haystaa structure-ka horizontal line haystaa incline aan sameynaa incline-ka aan sameynayna waa upward sababtoo ah kan ayaa positive ah so samee minus 30 fiiriya hal mar minus 30 waxaa ka jirtaa area oo area of 2 area 2 oo 78 ah meeqa ay soo baxaysa 48 mujeedin 48 maadaama 48 ii soo baxdo waa qoranaya 48 kilonewton into meter so area 3-deeda minus c dheh oo ah 24 oo lagu dhuftay distance waa 24 oo lagu dhuftay distance waa 2 meter idan meeqay keentaa 48 keenay so 0 48 minus 48 0 so waxaygu waa isku dhamaanayaan insha Allah so marka cashirkeeni maanta halkan ayuu kusoo gabagaboonaya laakiin BMD-ga
عشرة عن مان سمينا و بي ام سيمبل example ادي ادو فضل واي waxaan sameynay SFD iyo BMD SFD iyo BMD sida loo sameeyay waa aragteen casharada ka dambeeyay insha Allah waxay noqon doonaan kuwa xooga example kan ka sii adag insha Allah inta aan ka gaareyno cashirkeena xigo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi